بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaan nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxa iibka ah waa boos bannaan oo ku yaalla meel maasha allah ah xaafad aad iyo aad u camiran si fiican u dhismaysa jidadkeeda ay fiican yihiin dhulka iibka ah waa meesha hadda geedaha ay ka baxayaan geed yahuudka waa dhulka hadda ay kaamiradu ay hayso marka soo dhawaada walaalayaal waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalka aan guda galo xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala idinkana dhagaha ii raariciya walaalayaal haddii aan ku bilaabo booskan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada Dayniile waxa uu uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaano Raadeerka weliba si gaar ah xaafadda booskan oo ku yaalo waxaa la yiraahdaa New Muqdisho waa xaafad caan ah oo ismayaal cusub oo fara badan ay ku yaalaan sanadahan dambe si fiican loo degay u dhisantay magaca ayaad ka fahmi kartaa walaalayaal xaafaddaani waa xaafad ka mid ah xaafadaha ugu shidan degmada Dayniile waxaa mara laamiga Dayniile weliba booskan iibka ah laamiga kama foga waxa uu ka yahay balooga afaraad 3 baloog kaliya ayaa ka xigta si gaar ah balooga afaraad booskiisa 7aad waaye waadna aragtaan meesha sida u camiran tahay u dhisan tahay jidadka uu haysto runtii waa xaafad aad ka helaysid weliba markaad timaadid ayaa si fiican wax badan u sii arki doontaa shirkadda Dallas Real Estate-na haddaan nahay waxaa diyaar u nahay ama idin ballan qaadeynaa inaan xaafaddan iyo guud ahaan degmada Dayniile aan idinkaga soo gudbinno insha allahu tacaala guryo iyo dhulal beec ah muuqaalo qurux badan kuwan oo kale halkaan idinkula wadaagna insha allahu tacaala xagga tilmaanta inaad saas u fahanteen ayaa rajaynayaa New Muqdisho Raadeerka degmada Dayniile ayuu boos ku yaalaa walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo booskan iibka ah booskan cabirka oo ku fadhiyo waa 20 lagu dhuftay 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood sida u yaqaanaan wadadan hadda aad arkaysaan waxa uu ka haystaa 15 mitir dhirirkana walaalayaal waxa uu yahay 20 mitir sidaas ayuu ku yahay 20 lagu dhuftay 15 runtii waa cabir weyn cabirada finti barkuundishaha la yiraahdo waa cabirada nooca ugu fiican waa cabir weyn oo guri weyn laga dhisi karo haddii familka ballaaran ama 2 qayb oo kale in loo dego la rabane 2 guri laga dhisan karo oo markaasi 2 qoys ay degi karto marka dhulkaas faa'iidadiisa waa noocaas cabirka ayaana keenayo marka soo dhawaada walaalayaal xagga cabirka waa nooc ugu fiican waa nooc macquul ah haddii aan walaalayaal ka hadlo qiimaha booskaani lagu rabo ama lacagta lagu gadaayo walaalayaal booskaani waxaa lagu gadayaa 35,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis runtii waa qiimo macquul ah markaa fiiriso laamiga inta u jiro markaa fiiriso jidadka uu haysto markaa fiiriso deegaanka uu ku yaalo iyo sida xaafadda uu ku yaalo ee u dhisan tahay sidoo kale waa meel istiraatiiji ah xaafado badan aad ka aadi karto waxaa ku dhow
daarisalaam haddii loo baahdo oo dhankaas qiblada aad usii aadi kartid. sidoo kale suuqa jayga iyo xaafadihii hore ee yakshiid la dhihi jire dhankan kale wardhigle ayaa kaa xigto laamiga warshadaha markaa soo aadid. laamiga warshadahan uma dheera, marka waa dhul ku yaallo xaafad aad iyo aad istiraatiiji u ah, taasoo iyadana qiimo u yeeleysa. marka soo dhawaada walaalayaal, lambarada meesha ku qoran naga soo waca insha allah. weliba dhulal kaloo fara badanna waa idinkaga haynaa sidaa haddaba idiin sheegay. haddii aan walaalayaal ka hadlo sidoo kale jidadka oo booskaani haysto, sida muuqaalka hadda ka arkayseen, boosku waa hal jidle, waxaa hormara hal wado, waxa uu ku dhegan yahay guryo dhinacyada kale ka xiga gadaashaas oo jeeda guryaha jeengadaha. dhinacan kale guri sar ah ayaa ku yaala, marka waa hal jidle. jidkiisana waa wado weyn. haddii aan ka hadlo dhanka jihada u jeedo, gurigaas filada ahna waa uu ku dhegan yahay, inaad si fiican aragtaan ayaa rajeynaa. walaalayaal, jihada u jeedo waa galbeed ujeed, ama wadada waxay ka martaa dhanka galbeed. sidaas awgeed gurigii booskan laga dhiso waxa u jeesanayaa jihada galbeed. walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga booskani waa heer sare. waxa uu leeyahay dukumenti nadiif ah oo saxan. waxa uu leeyahay walaalayaal rasiid iyo sabarloog originaal ah. haddii aan ka hadlo nooca dukumentiga booskani waa dukumenti federaal ah. federaal waxaa la lahaa dukumentiyada ka soo baxay gobolka banaadir, weliba wixii ka dambeeyey 2012 ayaa badanaa loo yaqaanaa, inkastoo dadka qaar ay kuwa dambe oo dhan iska dhahaan. marka dhulkaani waa dhul noocaas ah, waa dhul haddana goofkiisa la hubo oo nadiif ah, ma aha dhul dowlo ama meel xero ahaa jirta xataa. inkastoo dhulka dowladda laftirkiisa haddii isla dowladda bixiso si sharci loo bixi uu sax yahay, laakiin dhulkaani hadda ma aha. marka soo dhawaada walaal, xagga dukumentiga xuluul ah ma laha, nootahay alla middaa jecesha ayaa lagu geynaa insha allahu tacaala. walaalayaal, sidoo kale haddii aad eriyadan dhulku leedihiin nala soo xiriira, waa idin suuq geyneynaa. haddii aad u baahan tihiin sidoo kale, iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir. ugu dambeyntii walaalayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsaneynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayn insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate, walaalayaal soo dhawaada, ku soo dhawaada gacmo furan, ku soo dhawaada qalbi furan, ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya. haddaba walaalayaal, sidaan nooga barateenba, waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah. walaalayaal, ku soo dhawaada, daawasho wacan, ka faa'iidaysi wacan. waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala. walaalayaal, waxa iibka ah waa boos bannaan oo ku yaalla meel maasha allah ah, xaafad aad iyo aad u camiran, si fiican u dhismaysa, jidadkeeda ay fiican yihiin. dhulka iibka ah waa meesha hadda geedaha ay ka baxayaan, geed yahuudka. waa dhulka hadda ay kaamiradu ay hayso. marka soo dhawaada walaalayaal, waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalka. aan guda galo xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala. idinkana dhagaha ii raariciya. walaalayaal, haddii aan ku bilaabo, booskan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho. magaalada muqdishona waxa uga sii yaalaa degmada Dayniile. degmada Dayniilena waxa uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaano Raadeerka. weliba si gaar ah xaafadda booskan oo ku yaalla waxaa la yidhaahdaa New Muqdisho.
waa xaafad caan ah oo dhismayaal cusub oo fara badan ay ku yaalaan sanadahan dambe si fiican loo degay u dhisantay. magaca ayaadba ka fahmi kartaa. walaalayaal, xaafaddaani waa xaafad ka mid a xaafadaha ugu shidan degmada Daynile. waxaa mara laamiga Daynile, weliba booskan iibka ah laamiga kama foga. waxa uu ka yahay balooga afaraad, 3 baloog keliya ayaa ka xigto. si gaar ah balooga afaraad booskiisa 7aad waaye. waadna aragtaan meesha siday u camiran tahay, u dhisan tahay, jidadka uu haysto. runtii waa xaafad aad ka helaysid, weliba markaad timaadid ayaa si fiican wax badan u sii arki doontaa. shirkadda Dallas Real Estate-na haddaan nahay waxaa diyaar u nahay ama idin ballan qaadeynaa inaan xaafaddan iyo guud ahaan degmada Daynile aan idinkaga soo gudbinno insha allahu tacaala guryo iyo dhulal beec ah, muuqaalo qurux badan kuwan oo kale halkaan idinkula wadaagna insha allahu tacaala. xagga tilmaanta inaad saas u fahanteen ayaa rajeynayaa. New Muqdisho raadeerka degmada Daynile ayuu boos ku yaalaa. walaalayaal, haddii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo booskan iibka ah, booskan cabirka oo ku fadhiyo waa 20 lagu dhuftay 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan. wadadan hadda aad arkaysaan waxa uu ka haystaa 15 mitir, dhirirkana walaalayaal waxa uu yahay 20 mitir. sidaas ayuu ku yahay 20 lagu dhuftay 15. runtii waa cabir weyn. cabirada finti barkuundishaha la yiraahdo waa cabirada nooca ugu fiican. waa cabir weyn oo guri weyn laga dhisi karo. haddii familka ballaaran ama 2 qayb oo kale in loo dego la rabane 2 guri laga dhisan karo oo markaasi 2 qoys ay degi karto. marka dhulkaas faa'iidadiisa waa noocaas cabirka ayaana keenayo. marka soo dhawaada walaalayaal, xagga cabirka waa nooc ugu fiican, waa nuuc macquul ah. haddii aan walaalayaal ka hadlo qiimaha booskaani lagu rabo ama lacagta lagu gadaayo, walaalayaal booskaani waxaa lagu gadayaa 35,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah, macal dalaal iyo heshiis. runtii waa qiimo macquul ah markaa fiiriso laamiga inta u jiro, markaa fiiriso jidadka uu haysto, markaa fiiriso deegaanka uu ku yaalo iyo sida xaafadda uu ku yaalo ay u dhisan tahay. sidoo kale waa meel istiraatiiji ah, xaafado badan aad ka aadi karto. waxaa ku dhow Dar es Salaam haddii loo baahdo oo dhankaas qiblada aad u sii aadi kartid. sidoo kale suuqa Jayga iyo xaafadihii hore ee Yakshiid la dhihi jiray, dhankan kale Wardhigle ayaa kaga xigto laamiga warshadaha. markaa soo aadid laamiga warshadahan uma dheera. marka waa dhul ku yaalo xaafad aad iyo aad istiraatiiji u ah, taasoo iyadana qiimo u yeelaysa. marka soo dhawaada walaalayaal, lambarada meesha ku qoran naga soo waca insha allah. weliba dhulal kale oo fara badanna waa idinkaga haynaa sida haddaba idin sheegay. haddii aan walaalayaal ka hadlo sidoo kale jidadka oo booskaani haysto, sida muuqaalka hadda ka arkayseen, boosku waa hal jidle. waxaa hormara hal wado. waxa uu ku dhegan yahay guryo dhinacyada kale ka xiga gadaashaas oo jeeda guryaha jeengadaha. dhinacan kale guri sar ah ayaa ku yaala. marka waa hal jidle, jidkiisana waa wado weyn. haddii aan ka hadlo dhanka jihada u jeedo, gurigaas filada ahna waa uu ku dhegan yahay. inaad si fiican aragtaan ayaa rajeynaa. walaalayaal, jihada u jeedo waa galbeed ujeed ama wadada waxay ka martaa dhanka galbeed. sidaas awgeed gurigii booskan laga dhiso waxa u jeesanayaa jihada galbeed. walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga booskaani waa heer sare. waxa uu leeyahay dukumenti nadiif ah oo saxan. waxa uu leeyahay walaalayaal rasiid iyo sabarloog originaal ah. haddii aan ka hadlo nooca dukumentiga booskaani waa dukumenti federaal ah. federaal waxaa la lahaa dukumentiyada ka soo baxay gobolka Banaadir,
weliba wixii ka dambeeyey 2012 ayaa badanaa loo yaqaanaa, inkastoo dadka qaar ay kuwa dambe oo dhan iska dhahaan. marka dhulkaani waa dhul noocaas ah, waa dhul haddana goofkiisa la hubo oo nadiif ah, ma aha dhul dowlo ama meel xero ahaa jirta xataa. inkastoo dhulka dowladda laftirkiisa haddii isla dowladda bixiso si sharci loo bixiyo uu sax yahay, laakiin dhulkaan hadda ma aha. marka soo dhawaada walaal, xagga dukumentiga xuluul ah ma laha, nootahay alla middaa jecesha ayaa lagu geynaa insha allahu tacaala. walaalayaal sidoo kale haddii aad eridan dhulku leedihiin nala soo xiriira, waa idin suuq geyneynaa. haddii aad u baahan tihiin sidoo kale, iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir. ugu dambeyntii walaalayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.